إذ لهانتيبا كل سلوات برنامجنا مولد دلانكا وكدا وطان مركزو بخوتان بقان كلنا يوتيوب دلان دلان كورية تضباط بشيكا عصب أياكم غشان شيكا تضباط كنا وحي غيب كيدي وقوه الرئيسيت هاي شيكوين كبقورة بدا قنتي دا كنول الريان تاس وشيكوين كيني هوري قيبا كميدا نولشي دا اينو كاقبتنا وشيكا دا قاركا انكو بلابي وحالي بري هوري وبري هوري وحجري boqortooyo ka kooban noolayaal kala duwan oo ku nool badda gunteeda hoose kuwaas oo iska kaashan jiray si wada jirana heshiis ugu ahaa maareynta noloshooda badweynta gunteeda hoose ayay ku kala noolaayeen waxay haayeen kuwo kala duwan oo midabyo kala nooca leh balse dhammaantood si nabad احترام iyo istixgelin ku dheehantahay ayay dhibaato la'aan ugu wada noolaayeen badda dhexdooda iyadoo kala duwanaanshaha midabkooda awoodooda dhererkooda iyo xataa abuurtaankoodu midna uusan dhib ku ahayn boqortooyadan waxa uu talin jiray boqorka caanka ah ee Poseidon waxa uu ahaa boqorka dhalay boqorada Rayaan maalin maalmaha kamida ayay Rayaan u timi iyadoo la socota saddexda hablood ee boqorku dhalay waxay ahayd mid ugu yar waxaana ay caado u ahayd in hablidiisa ugu yar uu boqortooyada ku wareejiyo markii ay gaadho da loogu tala galay waxa uu ku yiri inanteedii hadda waxaad ku sii dhawaanaysaa da'dii aad qaadi lahayd xilka boqortooyada inta saad ka gaadhayso halkaas waxa waajib kugu ah inaad ilaaliso ammaanka iyo nabadgelyada boqortooyadeena oo dhan aanad uga bixin laakiin Rayaan wax taa ka duwan ayay sheegtay oo waxay tiri waxaan doonayaa inaan ogaado nolosha ka jirta badda guudkeeda nooca ay tahay taas ayaan rabaa inaan maalin ka warkeeno waxay doontaba hay ugu qaadatee hooyadeeda ayaa ku tidhi maqlinanteedii noolaha bariga ku nool iyo badda guudkiisuba maaha kuwa ixtiraam nolosheena u haya waxay nagu soo taadiyaan wasakhda waxayna inuu adeegsadaan wax kasto ay nagu waxyeeleyn karaan nafteena iyo bay'ada aan la noolahayba intaba waxay ku hayaan khatar weyn mana aha inaad u gasho sheegadantan waxba kama bedelin damaca Rayaan ah inay maalinun bariga aado muddo dheer ayay ka fikiraysay sidii ay taas ugu suuragali lahayd laakiin maalintii dambe ayay go'aan u gaadhay waxayna raacday saaxiibkeed Vili waxay u wada tageen nibir weyn waxayna kala hadleen qorshe uu ku tahriibin karo kana saari karo xayndaabka boqortooyada una gudbin karo meel ay ka baxsan karto wada hadal kadibna waxay gaadheen afkarasho nibirigana isagoo socda ayaa u yimi gaadhka ilaalinaya boqortooyada oo kuwa seefo adag ku rubaysan way fahmeen inuu nibiri kalidii yahay oo isaga cidina ma celin karto ee way sii daayeen isagoo la socda dhasha yar ee Vili haraayay u sii socdeen markii uu badweynta dhexdiisa soo gaadhayna waxa uu sii daayay Rayaan oo ahayd qofka uu tahriibinayay sida sharci darrada kaga soo dhex saaray boqortooyada uu ka taliyo boqorka Poseidon way soo dabaalatay markii ugu horeysayna nolosheeda waxay aragtay neecawda bariga ka dhacaysa iyo qorrax qurxoon cida shimbiraha oo aysan weligeed arag ayay maqashay aad ayay ugu faraxday waxaanoo kalena xataa taariikhdeeda marnaba may arag waxay xasuusatay waxyaabihii ay ku riyoon jirtay waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay mid kamida heesihii ay dhageysan jirtay yaraanteedii balse nolosha ka jirta bariga oo aad u cajiib badan ayay maanta dhanba u dhagtaagaysay muddo waxay u dhagtaagtoba oo ay fikirto mar kaliya ayaa waxay maqashay dhabaqa hees aysan har u maqli jirin iyo cod muusig biyaha intay quustay ayay u oraday dhankii jabaqdu ka imanaysay balse mar kaliya ayay aragtay doon weyn oo ag taagan waxa ka dhacaya gantaale ay ridayaan oo dabaaldeg sidoo kale intay faraxday ayay mar kale ku carartay saaxiibkeeda ayaa ku yiri ha u tagin is ilaali khatar ayaan gali karnaa balse uma joojin dhabaqaas oo dhan muddo markay u socotay ayay haddana mar kale istaagtay waxay aragtay quruxda doonta weyn oo weligeed aysan arag doonta waxa saaran boqorka barqad
iyo aabihii waa boqor isku diyaarinaya inuu dhaxalka boqortooyada aabihii oo ka tariya dhul ku yaala bariga weyn la wareego muddo markii uu doonta saarnaa ayaa u tumay Und Aria begann mit ihrer wunderschönen Stimme die Flötenmelodie mitzusingen. Rayaanna waxay ku dartay codka laxan cajiib ah oo ay runtii hibo u lahayd markii uu soo jiitay dhawaaqa uu tumaya boqorku. Der Prinz hörte die Stimme und sagte: boqorka ayaa yaabay waxuu ku yidhi halkii ayuu codku ka imanayaa maxaan maqlayaa waa ayu cidda ila heesaysaa laakiin cidna ma arkaynin waa uu yaabay iyana waa ay dhuumatay laakiin dhanka kale noolaha badda guntiisa ku nool waxa uu helisa qumayada feega oo aan sheekooyin hore ku soo baranay waxay u ahayd inan la walaalaha boqorka Poseidon balse markii ay xumaatay ayaa la habaaray waxaana ay taasu sababtay in meel ka mid ah badda gunteeda ay ku xayiranto hadda waxay aragtay waxa dhex maraya boqoradda iyo boqorka ay jeclaatay sixirkeeda ayay ka dhex aragtay waxay tidhi waa fursad aan ka faa'iidaysan karo markiiba waxay kaxaysay sixirkeedii fal iyo habaar waxay adeegsan karaysay oo dhan waxayna ay dalbatay inay doontu degto oo ay boqorka disho boqorkii ayaa mawjado khatari ku kaceen badii oo dhan ayaa gelgelatay oo ruxantay mar kaliya doontina waa ay degtay oo badii ayay quustay boqoradda Rayaan ayaa markiiba carartay si ay u badbaadiso waxay isku dayday wixii ay qaban karaysay doontu soo way burburtay muddo markii ay dabaalenaysay ayaa waxay aragtay boqorka qalabkii oo muusiga ku tumayay iyo boqorka laftigiisii oo badda ku sii degaya kor ayayna u soo qaaday biyaha dushooda ayay keentay waxay aragtay inuu nolol miirdulsoon ku jiro wayna ka warwartay xaaladiisa muddo markii ay eegaysay oo tii Allah miyuu dhintay mise waa uu nool yahay ayuu markii indhaha si tartiiba u soo kala qaaday isagoo aan wali si fiican waxba u arkaynin laakiin markii ayay maqashay ciida ay ku soo cararaysa waligeed ma maqale markiiba badda ayay quustay waxay ilaaladiisii hooyadii iyo aabihii oo qarqoonkii badda uu ka soo badbaaday waxa ku yiri gabadh ayay badbaadisay gabadh ma garan karo oo wajigeeda ma arkayn laakiin waan hubaa codkeeda meel ayaan ku maqlay si uun ayaan u garanayaa iyadoo ushi uu muusiga ku tumayay wadata ayay badda gunteeda timi markii ay soo tagtayna aabaheed boqor Poseidon ayaa u yimi wuxuu ku yiri waxaad jebisay sharciga iyo xeerarka boqortooyadeena u yaala waxaad samaysay oo aad u banbaxday wixii noloshaadu dhan aan ka ilaalinayay naftaada ayaad khatar gelisay boqortooyadeena waad ku gaftay ma aha tani waxaan qaadi karo oo aan aqbali karayo waa edab daro marnaba aanan yeeli karaynin waxay ku tiri aabbo waxaan doonayaa inaan dadka iyo noolaha soo arko mar kale ayaa u xanaaqay waxa uu yiri waxa noloshaadu dhan ka mamnuucaya inaad boqortooyada ka dhex baxdo ma bixi kartid haddii aad baxdana waxaad la kulmi doontaa ciqaab culus aad ayuu xanaaqay aabaheed wuxuuna u baqayay nolosheynantiisa iyo dadka uu xukumo intaba balse boqoradda Rayaan hanjabaada si marnaba ma niyad jabanin muddo kadib waxay abaabushay qorshe kale kaga baxsanayso badda waxayna doonaysay markan qorshe dhagartiisa leh ilaalada qumayada Vega oo dirxii laba madax leh ayaa markiiba arkay wuxuuna u yimi Vega albaabka ayuu uga soo galay markaasuu ku yiri maqal Vega boqoradii ayaa soo socota adiga ayay ku imanaysaa waxaan filayaa waa maalintaadii markan waqtigu adiga ayuu kula shaqaynayaa waa inaad arsataa Vegana way qosashay aad ayay runtii ugu faraxday oo waxay doonaysay ayay maanta gacanta ku dhigtay waxayna rabtaa inay boqoradda kala baxdo qayb ka mid ah nolosheeda oo muhiim ah boqoraduna waxay uga warantay rajada ay doonayso Vegana markiiba waxay ugu xidhay shuruur adag si ay ugu meelmariso waxay ku tiri maqal waxaan ka dhigayaa sida qof bil'aadana waxaad ku noolaan kartaa bariga adigoo sida dadka caadiga u soconaya halkaas ayaad joogi kartaa boqorka ayaa isbaran kartaan waanad guursan kartaa haddii muddo maalin ah halka aad joogto
waa boqorka isku baran kari weydaan waxa kugu dhici kartaa inaad noloshaada oo dhan ilowdo oo aad xasuus guurto boqorkuna ka tago sidoo kalena dab aad ehelkaaga u heli weydo taa bedelkeedana waxaan kaaga bedelinayaa inaad codkaaga isiiso waa 3 shuruudood midkood waxaad bixinaysaa codkaaga boqorka ayaad guursanaysaa way noqon waayaysaa waxaad lumin doontaa noloshaada oo dhan ehelkaana waad ilaabaysaa oo dib uma xasuusan doontid say haataba rayaan go'aanka adag ayay qaaday waxayna cabtay sixirkii ay kula ballantay Vegana taabalinkeeda waxay la hadhay codkii quruxda badnaa ee boqorada rayaan lahayd markii rayaan waxay u soo dalbaalatay badda balse markii meel dhex marayso ayay yeelatay lugaha bilaadanka oo kale muddo markay socotay ayaa waxa arkay saaxiibkeed Vili isaga ayaana soo badbaadshay oo la soo dabaashay wuxuu ku yiri wiliga ma arag adigoo luga bilaadan leh maxaa dhacay badda ayay timi bariga waxayna xidhatay dharkii dadku xidhan jireen oo kale xilliga iyadoo lugeynaysa ayaa boqorkii badda laga soo badbaadshay oo raadinaya gabadhii noloshiisa soo badbaadisayna xilliga badda yimi markii uu arkayna waa uu ku soo cararay waxa ku yiri adiga miyay ahayd gabadhii badbaadisay laakiin nasiib darro rayaan markan ma hadli karto waxa kala hadhay qumayada Vegas markale ayuu ugu celiyay wuxuu ku adiga miyaa tii badbaadisay wax kale oo ay sameyn kartaa ma jirto laakiin kolba su'aasha weydiiyay si ay uga jawaabto ayay madaxa ruuxdaa wuxuuna markan fahmay inaysan hadli karin oo iyada hadal ka soo baxaynin laakiin waxay caddayn ahaan u tusaysaa ushii uu ku heesayay oo muusiga ku tumayay boqorku tasan ma aaminsana sababtu waxa weeye gabadhii isaga soo badbaadisay waxa ay tu hadli kartaa sidaasoo tahay wuxuu aqoonsaday inay tahay qof kale oo badda ku qarqoonsan waanu soo kaxeeyay isagoo wali shaki kaga jira inay tahay tii soo badbaadisay laakiin waxa uu ogsoon yahay tan inaysan ahayn gabadhii uu arkay waayo taas waxay lahayd cod aad u macaan muddo markii ay joogtay boqorkii waa iska tagay noloshuna waxay si adag ugu adkaatay rayaan sababtu waxa weeye haduusan iyada boqorku guursan hadda waxa ku soo baxaya sixirkii ay Vegas u dhigtay waxay lumin doontaa nolosheeda oo dhan waxay laabi doontaa ehelkeedii oo dhan kadibna halkaas ay nolosheedu ku baabi'i doontaa badda xilligeeda ayay soo taagtay waxaana la soo gaaray maalintii saddexaad ee uu sixir ku qabanayay hadda waxay tahay turajabeel waqtiga ayaa iskuraya noloshuna aad ayay ugu adkaatay laakiin mar kaliya ayaa waxa soo booday labadii hablo ee walaalaha ahaayeen iyo hooyadeed waxa kale oo iyana soo baxay oo aragtay ayay hooyadeed waxay wadaa koobkii ay sixirka ku samaysay Vegas waxaana jabiyeen sixirkii ay Vega u dhigtay waxa sidoo kale mar kaliya ka soo dhex booday badda aabaheed boqor Poseidon marqura ay noloshooda dhan ku faraxday wuxuu ku yiri inantiday waxaan ku werinimay si aanu kaaga heelino dhagartay ku maleegtay qumayada Vegas waxaan kaaga soo ridnay kadib markii aan sixirkeeda jabinay codkaagii hadda waad hadli kartaa sidaad adigu rabtayna ayay noqon kartaa oo bariga ayaad ku noolaan kartaa maadaama adiga go'aankaagu sidaa yahay kana hadda waa codkaagii markaliya ayaa codkeedu soo laabtay markaasay ku tiri aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin familigeyga aan ku faraxsanahay qoyskeyga Vega ayaa wixii dhacay aragtay halkaas ayay ka marar dilaacday iyana waxa markiiba la cararay saaxiibkeed waa nibirigii waxa uu gaarsiinaya boqorkii oo hadda uba diyaar ah inuu gabadh kale guursado balse si ay tan uga joojiso banaanka ayay soo taagtay waxayna ku dhufatay heesteedii cajaa'ibka ahayd ee ahayd tii markii ugu horeysay Aber plötzlich hörte der Prinz etwas und hielt inne. Si degdeg ahna waxa uga soo booday markabkii oo saarnaa oo eegay kadibna waxa isku soo tuuray biyaha isagoo u soo dabaashay dhanka codka uu ka soo baxayo waxa uu yimid nibirigii kadibna Es war wieder Arias schöne Stimme. markan way hadli kartaa waxayna ku tiri barasho wanaagsan magacaygu waa Rayaan aabaheed boqor Poseidon ayaa aqbalay inuu inanteeda guursado boqorka barqad sidaasna waxa ayaan ku hantiday nolol qurux badan oo ay boqorka la qaadatay waxaana halka ku guuldareysay dhagartii maleegaysay qumayada Vegas
qaybtii koobaad ee sheekadeenna ayaa inta ku dhamaatay qaybta labaad ayaad mar kale ogaan doontaan waxa kala dhex mara qumayada Vegas iyo boqorada Rayaan ee badda gunteeda ku nool tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo